kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaan soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee ka soo kordhay howlgalka ciidamada puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka bari. haddaba maxaa soo kordhay? howlgalka horta waa socdaa, guulo waaweyn bayna ciidanku gaadheen, waan dul istaagi doonaa guulahaasi. waxaan dhanka kaleeto iyadana aan idiin wadaa kooxda gabalkeedu u dhacay ee argagixisadee daacish oo diyaarad daroon ah qaraxyo intay kasoo buuxiyeen ku weeraray saldhig ay ciidanka dowladda puntland ay ku lahaayeen ama ay ka deganaayeen buuraha gobolka bari. deegaanada weliba laga xoreeyey gaar ahaan deegaanka loo yaqaano janajiifta ayaa ay diyaaradaasi daroon tahay oo qaraxyo ay kasoo buuxiyeen ay ku weerareen. dhimasho iyo dhaawac ayaa jira, khasaaraha guud ee halkaasi ka dhacay waan dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kaleeto iyadana dul istaagi doonaa dowladda puntland oo mar kale eed culus u jeedisay dowladda federaalk ee soomaaliya, isla markaana soo bandhigtay cadaymo la xidhiidha in dowladdu ama waa dowladda federaalke ay hagardaameynayso oo ay fashilinayso howlgalka puntland ay kula jirto kooxda khawaarijta ee ciribtirka deegaanada puntland ay kaga sugan yihiin. waxa ayaan daraa in dowladdii federaalkaba cadaymo lagu hayaba oo la leeyahay iyagiibaaba waxa weeye curyaaminaya oo hagardaameynaya oo fashilinaya howlgalkii puntland ay kula jirtay ciribtirka kooxda khawaarijta. waan dul istaagi doonaa iyadana eedaasi ay puntland dowladda federaalka u jeedisay mid iyo labo ayaana ka dul istaagi doonaa. waxaan dhinaca kaleeto iyadana aan dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey iyo kooxdan daacish meelaha loo malaynayo inay u baxsanahayaan iyo xidhiirka kala dhexeeya maamulka somalilan, xogaha laga helay intii la qabtay iyo sharciyadii la ururiyey laga soo helay goobihii laga qabsaday ayaan muuqaalkan iyadana ku qaadaa dhigi doonaa. soo dhawaada muuqaalka like saar, aragtidiina noogu reeba qeybta commentiga. aynu ku bilowne howlgalka horta waa socdaa si habsami leh oo aada u wanaagsan ayuu u socdaa. ciidamadu maalinba maalinta ka dambaysa goobtii kasii shishaysa unbay sii tegayaan. waa markaan soo koobna weeye, ma rabi inaan muuqaalka inugu dheereeyo, baryahana muuqaalka waa soo gaagaabiyaa inaad aragteen waramahaye daqiiqado yar baan kusoo koobaa sidiina u cajisin oo markaas aad waxa weye inta yaree duuban aad u dhamaysataan oo xogta aad u wada qaadataan. howlgalka horta waa socdaa oo si habsamil u socdaa. puntland weerarkan ay ku qaaday kooxdan argagixisadee daacish iyadoo weliba cid ka garabsaynaysa jirin, sidii ay u qorsheeyeen iyo si ka wanaagsan buu u socdaa. shacabkii looma kala hadhin. shirar waaweyn baa ka socda hadda sida magaalada sweden iyo yurub oo dhan magaalooyinkooda qurba joogta reer puntland shirar bay ka wadaan oo waxa weye lagu taageerayo ciidankan howlgalka ay ku jiraan. waa ciidanka puntland. waxaa sidoo kaleeto iyadana shirar ay ka socdaan dalka maraykanka oo qurba joogta puntland iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ku bogaadinayaan ayna ku taageerayaan howlgalkaasi puntland ay ku qaaday kooxdan khawaarijta ee lagu ciribtiraya muddada kooban weliba ay qabsadeen. 7 beri ayay qabsadeen saraakiisha ciidamada puntland inay kusoo afjari doonaan kooxdaasi quuleysatada ee ummadda dhibaataysay ee buuraleyda gobolka bari ku sugan. waa 7 beri oo keliya. 7 beri weliba waxaan u malaynayaa 2 maalin baaba hadda sii ka goday oo 5 maalin baaba dhimanba. 5taas bay saraakiishu leeyihiin gebi ahaanba waa soo afjaraynaaba. meelaha hadda marka ay ku dhiman yihiin ee kooxda lagu celcelinayana waa meelo ay ku dhumaalaysanayaan oo godod iyo sidoo kaleeto dhul waxa weeye togag ah iyo buuraha hoostooda oo dee markaas waa dhumaalaysun meel mucayiman oo sax oo la garanayo oo waxa weeye meeshaasa yay hadda ku sugan oo saldhigo weyn oo la garanayo ma jiro. waa buuraley iyo dhul hoostiin waxay hadda ku dhumaalaysanayaan oo waxa weeye lagula meeraysanayo qadha lagu hayo. maalin walbana duqeyn baa ku socoto gantaalada gagta lagu hayaa meel walba looga shikeeyo inay ku jiraan. argagixisadan intii dagaalku u bilowday in ka badan 200 waa laga dilay, sida ay saraakiil ku sugan jiidaha hore ay xaqiijiyeen. 200 way ka badan yihiin baa layidhi inta laga dilay. rag badanna waa la hayaa. inay isa soo dhiidhiibaan hadda way bilaabeen oo way socotaa iyadana. marka taasi waa midda iyada. dhinaca kaleeto maanta waxay intay qarax ka soo buuxiyeen diyaarad daroona bay ku weerareen goob ay ciidamada joogeen. hal askari baa puntland kaga dhintay, 3na waa ku dhaawacmeen sida ay xogta ugu soo gaarayso. daroon tahay inay intay wax ku soo buuxiyaan ay sidaa usoo diraan mooyeene nimankii mujaahidiinta isku yaqaanay lahaa shacabka ka dhaadhicinaya mujaahidiin baa nahayo waan jahaadnaayo waxa weeye sidan aan nahayo ilmo libaxsan ka taabtaan nahayo
ragaan soo noqonin baa nahay oo dalkaanadii inaan jahaadoon janno doonanaan u imaanay wa kuwaa cararaya waa la cararaya waa lagu daba jiraa dagaal toosaba ma gelayaan dagaal toosaba ma gelayaan iyagoo cararaya dabada kaga wada dhacday iyo dhabarka kaga wada dhacday hadda waxay bilaabeenba marka xataa carar hadda la arki maayo waxa weye meel walba oo ciidanka lagu sheegay sii cararayaane diyaaradaha daroona inay waxa weye de qarax kasoo buuxiyaan ay ciidanka ku weeraraan ama dadka shacabka ay ku weeraraan intaasay hadda yay iskugu soo ururtay awoodoodii dhanay weerarkaas marka horta waan ka tacsiyeynayaa marka koowaad waxaan leeyahay inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u boogadhayo samir iyo iimaan allah inaga wasiiyo dhammaanteen intii ku dhimatay iyo inta dhaawacanba ehelada qaraabada dhammaan bulshada soomaaliyeed samir iyo iimaan allah ka siiyo nimankaasi inta ku dhimatay dagaalkaas inta u socda de waxna waa dadku waa dhimanayaan waa la dhaawacmayaa oo de waxa weeye rag dadku waxa weye wax noolaa baaban jirin ba de qof walba tiisuu ka dhimanaya waxaa sharaf leh ninkii isagoo dagaalamayo argagixisan la dagaalamayo waxa weye dhulkiisi iyo sharafkiisi iyo diintiisi iyo dunyadiisi iyo xoolihiisi iyo dadkiisi ilaashanaya ku dhintaa ugu sharaf badan kaasaa ugu sharaf badan marka ninta dhimatay marka sharaf bay ku dhimatay inta dhaawacantayna sharaf bay ku dhaawacantay inta noolla de waxayba u taagan tahay inay howlgalkii sii waday u taagan tahay marka taasina iyadana waa in la ogsoonaado kooxdan marka waxay bilowday hadda dhagarahaasun daroontan yartahay wax lagu tumoo kale qaraxyo kasoo buuxin kadib bay soo diraysaa walow hadday ciidanku ay feejigan yihiin oo inta badan ba la soo dejiyo la qarxiyo waa dhaweyd aad ogeydeen 9 daroon in la qabtay maalin kalena 4 ka mida la qabtay maalin kale 3 la qabtay oo weli ay socoto qabashada laakiin hal baa soo baxsan oo intay de meel kor geeyaan oo la arkaynin duuciina wax buuxaya meehe bay hawada ka soo daynayaan hawada kora laga soo daynay wixii de hal mara bow la soo siinay iyadoo qarxiyo wadata oo gataal waxa way balaayo qarxa ay ku xidhan yihiin si kastaba waa nafla caarinmadii ugu dambeysay wey waxay meesha la joogaan male waxay meesha la joog gobolkoodii waa dhacay nimanka puntland baaba fahamtayba baaswarkooda dhan baa la hayaa marka inta kalena waa lagu daba jiraa sharciyo badan baa goobihii ay ka baxsadeen laga helay oo ajaanibta iyo sidoo kaleeto meelaha ay nimankaa kasoo galeen waddada ay soo qaadeen waxaas oo dhan nimankan waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa ajaanibta xaggee ka imaadaan halkay soo maraan nimanka waxay soo maraan berbere iyo hargeysay soo maraan meel kale ma soo maraan somaliland baa marin u ah somaliland bay soo marayaan berberay soo marayaan halkaa bay kasoo baxayaan xeebtay kasoo baxayaan halkaasay soo marayaan buuraha halkaa bay xeebtay kasoo gelayaan marka marinka koowaad ee ay soo maraan waa somaliland wey waa in sidaa loo fahmo weye marka kooxdan buuraha ku jirta iyo kuwan koonfurta iyo meeshaasaa laga soo diray oo halkaasay soo wada maraan ninka mas-uulka xataa ka noqonaya kooxda shabaab ka noqonay halkaabaa laga soo diraa marka waa inay bulshada soomaaliyeed iyadana ay taasi ay fahamto puntlandna dee wayba keentay oo caddaynteedii bay keentay in kooxdan meel kaleo ay soo martaay uusan jirin oo marinkooda iyo hawshooda uu yahay halkaa un taasina waa middaa dhinaca kaleeto puntland mar kale ayay ka hadashay hagardaamada iyo sidoo kaleeto fashilinta dowladda federaalku ay ku wado dagaalka buuraleyda gobolka bari madaxweyne ku-xigeenka oo waraysi bixiyey wuxuu yidhi puntland waa isku tashatay dagaalkana way ku jirtaa taageero way uga baahan tahay dowladdii federaalka ahayd oo waxa weeye caalamka looga baahan yahay laakiin kamaba hayno dowladdii federaalkeed kama hayno mar haddaana dowlad federaal waxbana ka haynin marka dee waxa weeye muhiimadda anadu in anagu isku tashano oo xoolahaanada iyo hantidaanada iyo hubkaanada iyo xiniyahanada aan fuulno oo waxa weeye aan waxaanada ku tashano weeye buu yidhi marka waana markii saddexaad afraad oo puntland ay ka hadlayso dagaalka ay qaaday isla markaana dowladda federaalku lagu eedeynayo inay iyadu ay xagaldaacinayso howlgalkaas oo ay fashilinayso madaxweynuhu wuxuu yidhi fashilintun hanaga dayso oo dowladdu hanaga dayso faragelinta ay dagaalka ku wado hanaga dayso shalayna war la soo saaray waxaa puntland ay codsi ugu dirtay beesha caalamka oo ay kaga codsatay in lasoo farageliyo dagaalka puntland ciribtirka kooxdaasi ay kula jirto in lasoo farageliyo oo isha lagu hayo oo weliba dowladda federaalka iyo howlgalka atmis ee fadhigoodu muqdisho yahay lagula xisaabtamo sababaha ay u hortaagan yihiin taageeradii puntland lagu taageeri lahaa dagaalkaasi laga taageeri lahaa la dagaalanka kooxdaasi laga taageeri lahaa inay soo farageliso codsigaas saameyn badan buu horta ku yeelanaya xasan iyo kooxdan atmis loo yaqaana howlgalkan waxa weeye midowda africa ee muqdisho joogay lacagaha malaayiinta dollara iska cuna saameyn badan buu ku yeelanaya sababtoo iyagu dhaqaalihii la dagaalanka khawaarijta xasan iyo waxaa qaybsada nimankaas howlgalka atmis baa qaybsada labadooda baa qaybsada ma doonayaan marka howlgal kaleeto meel kale ka bilowda ma doonayaan xasan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waan xoreynaynaa waan soconaynaa wejiga kalaan bilowna
5 bilyan baa loo soo shubi 5 bilyan buu meel kale ku shubani bilyan buu ku qaadanaya labada howlgal ee horeba intaasoo bilyan buu ku qaatay maraakiib hub ah ayaa loo keenay hubkii waa la xaraystay wuxuu reerkooda siiyo iyo wuxuu waxa weeye uu iibsadiyo wuxuu meel ku xaraysto ka dhigtay wax lagu xoreeyay ma jiro muqdisho lagu ilaalinayay hubkii isaga muqdisho ayaa lagu ilaalinayay marka Puntland waxay cadaysay in Xasan iyo saaxiibadiisu ay iyagaba fashilinayaan howlgalkan sida habsanida la u socdo ee kooxdan gobolkeedu dhacay ee khawaarijta ay kula jirto Puntland ayaan daro inteeda la weeyay Puntland marka waxaan leeyahay dawladda garab istaaga isku tashiga aad bilowdeen hal la xoojiyo nin walba wuxuu bixin kara ha bixiyo xoolaha la soo gado arig iyo looda la soo gado waxa weey kala qalala la keeno ciidanka la garab istaago dal iyo dibadba qof walba muuqaalkan uu soo gaaro qaybta ugu dambaysan ay la soo gaaro waxaan leeyahay oo reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba dagaalkaas ay Puntland gashay kaliya ay ku tahay ee Xasanna uu hortaagan yahay ee uu leeyahay Puntland waxa weey say dagaal kaligeed ku qaadi kartaa say waxa weey Puntland mashruuc kooxda lagu la dagaalamayo ay guul uga keeni kartaa sidee Puntland waxa weey guul ciidankeedu kaliya u gaari karaan sidee Puntland deegaanadeeda looga xoreyn karaa sidee Puntland annaga waxa weey mashruucina lacagta ku qaadanaynay ay Puntland waxa weey ay iskaga bilaaban kartaa waxaan leeyahay ka masayray waxaa la rabaa inaan waxa weeye uu ka qoomameeyo oo deegaanadeena aan xoreysano oo dhaqaalawan haysanaayo dhaqaalaheena isku gegeyno oo bulshada reer Puntland waliba gaar ahaan kuwa Puntland ka soo jeeda dal iyo dibadba ay dhaqaalaha bixiyaan oo quraan baa rabo dawladda ay ku garab istaagaan taasaan faraya